aqoon-yahanka badiba barayaasha sarsare ee wax ka dhiga jaamacadaha dalka oo Saab TV si gaar ah uga hadlayay magaalada Hargeysa ayaa bulshada reer Somaliland baaq dheer u diray ayaga oo ugu baaqay bulshada reer Somaliland inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo kala dambeynta maadaama oo maalinta bariya loo dareerayo doorashada golayaasha deegaanka iyo wakiilada. aqoon-yahankan kala duwan waxay si gaar ah u tilmaameen muhiimadda doorashooyinkan ay u leeyihiin Somaliland marka loo eego buqcadda ay Somaliland ku taalo iyo dalalka inagu xeeran halka ay ka taagan yihiin dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka socda. doorashooyinkan aynu galeynaa ee isku sidkani waxa weeyaan hebel ma soo baxayo ama hebel dhici maayo laakiinse waxa inoo soo baxaya waa Somaliland waxa weeyaan sawirka ay gudbinayso ayaa ka weyn wax kasta. waynu ognahay waxaanu joognaa mandaqada aynu ku noolnahay waxa jira culeysyo badan oo dhaqan-dhaqaale, waxa jira culeysyo badan oo siyaasadeed. qabsashada aynu doorashadan qabsanaynaa ee ay si nabad ah aynu uga dhacaysaa waxay ka turjumaysaa inaynu ka duwanahay dalalka kale mandaqada. waxa kaloo ay waxa weeyaan ay door weyn ka qaadanaysaa horumarka iyo gaadi socodka iyo ictiraafka magarata run ahaantii ay Somaliland helayso. marka waxa weeyaan missionkanna ama doorashadana waa hawl heer qaran ah. waxa ka shaqeynaya ardaydeedii aanu waxbarayna jaamacadaha ku haynay, waxa ka shaqeynaya ciidamadii, waxa inala jooga maxay tooleen goobjoogayaal caalami ah. dunidoo dhan wayna eegaysaa oo waxa weeyaan waxa halkaa ka soo baxa iyo sidaynu u qabsano iyo sidaynu natiijada inoo soo baxda aynu waxa weeye dhammaantiin aynu iskula qaadano ayaa waxa weeyaan beesha caalamku eegaysaa. marka waxa weeyaan waa guul weeyaan doorashadana waa guul bay dhammaantiin inoo tahay. cid gaara ama gobol gaara ama ashqaas gaara guul uma aha, laakiin dhammaanba shacabka reer Somaliland bay guul u tahay. waa inaynu markaa isbarbar istaagnaa maxay tooleen hawshan nabadana ilaalinaa. ardaydana waxaanu markaa u sheegnaa in iyaguna si fiican ay wax weeyaan ay hawsha u gutaan waajibaadka qaran ee markaa loo igmaday. muwaadin u code waxa weeye cidda aad jeceshahay inaad codkaaga siiso kuna code nabad iyo waxa weeye habsami socod wanaagsan. doorashooyinka maanta isku sidkan ee Somaliland ka dhacaya Britole haddii Ilaahay inoo qadaro waxay wax weyn ka tari doonaan geedi socodka horumarka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. waxaana qayb weyn ka noqon doonaan higsiga iyo himilada qaranku si guud u doonayo. markaas si aynu u gaadhno ujeedooyinka guud ee qaran ahaan aynu leenahay waxaan wacyigelin ahaan soo jeedinaynaa in qof kastaaba qayb weyn uu ka qaato ilaalinta nabadda kana fogaado wax kastoo qalalaasi keenaya. haddii uu wax dareemana hay'adaha allaamaha amniga uu la socodsiiyo. xasilooni iyo sabar iyo si hufan oo markaa waxa weeyaan dadku ay warkaan inay dadkan u bislaadeen maanta waxay doonayaanna ay gaaritaankiisa ay wadadeeda hayaan marka doorka culimadu waxa weeyaan inay wacyigelin weyn mujtamacooda siiyaan oo ku waxa weeyaan ku baraarujiyaan waxyaalaha wanaagu ku jiro ee mujtamacu ku hormarayo wadanku ku hormarayo diinta ay noogu wanaagsanaaso taas oo markaa daacadnimada iyo xilkasnimada iyo sabarka iyo inaan muujino markaa maanta inaan hayd dad u bislaaday inaan dhisano markaa waxa weeyaan dal wada leeyahay oo loo simeeyahay oo dimuqraadi insha Allah. taas ayaan maanta halkan isugu nimid dadka ku baraarujino. taas ayaa anagana waxay noo tahay sharaf mujtamac ayagana waxay u tahay sharaf marka ayna inagoo isku duuban inaan danteena ka hadalno si guud marka wax weeyaan iyo si gaar intaba aynu marka wax weyn u baraarujino anagana sharaf ay noo tahay culimada. awalan waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan ciddii ka shaqeysay doorashooyinka Somaliland ee barta soo gaaraan doorashadan oo is saaran oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, axsaabta qaranka, muwaadiniinta reer Somaliland iyaguna adkaysi badan muujiyay. maanta waxa weeye waa maalin taariikhiya. chapter ka mid ah chapteradii taariikhiga ah ee Somaliland ay hore ugu soo caanamaashay ayuu baaldahab ka geli doonaa. waxaanu dhammaan aanu faraynaa muwaadiniinta reer Somaliland inuu qof waliba si nabada ku codeeyo. annaguna aanu ku garab taaganahay aqoonyahankii Somaliland. maanta waxa weeyaan adduunkii oo dhan bayna eegaya. halkaa waxa maanta isugu yimid waxa weeyaan waa international community oo dhan. maanta waxa weeyaan maanta aqoonsi noogu dhow. waxaan doonaynaa insha Allah inaad markaa muujisaan wadaniyad iyo maxaan ku raadayay karti iyo commitment oo aynu tusno adduunka markaa waxa weeyaan waxaynu jiigsanayna ama ahdaafta aynu leenahay. insha Allah Somaliland guul baan u rajaynaynaa. waxaan leenahay insha Allah Somaliland wacan oo wanaagsan oo midaysan ayaa insha Allah aan doonaynaa inay ka soo baxdo doorashada. Ali Maxamed Jaamac, Ali Fahad, telefishinka Saab, Hargeysa.